Salaamu calaykum kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan warbaahiya media qodobada ugu waaweyn aad ku daawan doontaan warka warbaahiya media waxaa ka mid ah gudoomiyaha golaha shacabka oo kulan la qaatay ambassador Francisco Madera gudoomiyihii gobolka Mudug oo qaadacay xil qaadis lagu sameeyay wadada xiriirisa Jowhar iyo Mahadai oo go'day maamulka Puntland oo wafdi dheer u diray deegaan ay goordhow al-shabaab gacanta ku dhigeen iyo madaxweynaha galmudug xaaf oo sheegay muddo sanad ah inuusan tagin magaalada Muqdisho markana ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan halka aad warka ka daawanaysaan warbaahiya media fadlan subscribe saar channelka warbaahiya media gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya ambassador Francisco Madera gudoomiyaha wakiilka ayaa ka wada hadlay xoojinta iyo xiriirka iyo wada shaqaynta labada dhinac howlgallada wadajirka ee AMISOM iyo ciidanka xoogga dalka ay ku xasilinayaan gudaha wadanka Soomaaliya sidoo kale waxay ka wada hadleen sharciga doorashooyinka ee horyaala golaha shacabka wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya ambassador Francisco Madera ayaa gudoomiye Mursal la wadaagay howlgallada ciidanka AMISOM waxyaabaha ay u baahan yihiin ciidanka AMISOM iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliya si looga soo afjaro dagaalka lagula jiro al-shabaab waxaan qirtay in ciidanka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ay dadaal ku bixinayeen xasilinta iyo nabadeynta guud ahaan dalka sidii argagixisada loogu guuleysan lahaa golaha shacabka wuxuu diyaar u yahay inuu idinku garab taagnaado shaqooyinka adag ee aad u haysan dalka ayuu yiri gudoomiye Mursal kulanka ayaa waxaa goobjoog ka ah xogayaha guud ee golaha shacabka Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux habeen ka hor madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf waxa uu soo saaray wareegto uu xilka kaga qaaday gudoomiyaha gobolka Mudug ee maamulka Galmudug hase yeeshee saacado kadib xilka qaadistii uu ka soo horjeestay gudoomiye Cabdirashiid Xaashi Cartan oo shir jaraa'id ku qabtay gaalkacyo ayaa sheegay in warqadda xilka qaadista aan laga tashan isla markaana baraha bulshada uu ku arkay warqadda xilka qaadista waxa uu sheegay in waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka Mudug uu la sameeyay wada tashi sidaas darteedna aan xilligan jirin wax xilka qaadis ah sidoo kale isagoo ka hadlayay xiriirka dawladda federaalka iyo maamulka Galmudug ayuu sheegay in Galmudug aysan xiriir u jari karin dawladda federaalka Soomaaliya ayna ka tahay xubin kamid ah dawladda hadalka gudoomiyihii xilka laga qaaday ee gobolka Mudug ayaa ku soo aadaya xilli xiisadii ka dhalatay xilka qaadistii lagu sameeyay gudoomiyihii gobolka Hiiraan Yuusuf Dabageed ee wali ka taagan tahay magaalada Beledweyne kadib markii uu diiday xilka qaadistii lagu sameeyay gudoomiyaha Mudug oo xilka qaadistii lagu sameeyay ayaa ka hadlaya qaabkii uu dhacday xilka qaadistii lagu sameeyay ka soo baxday xafiiska xaas oo ku saabsan xilka qaadista uu sheegay inuu xilka ka qaaday gudoomiyaha gobolka Mudug Cabdirashiid Xaashi Cartan oo aniga ah inaan ka dhiibto aragtideeda iyo wixii ku aadan wareegtadaas saad la socotaan Galmudug waayahan dambe waxaa aad iyo aad isaga badneed khilaafaadka iyo waxyaalaha soo noqonaya oo siyaasadeed iyo kala aragti duwanaanshaha runtiina anigu waraaqdaas markay soo baxday baraha bulshada baan xiriirin markaa la sameeyeen waxaa la ii sheegay in xafiis ka soo baxday anuu howlo shaqo ku maqan waxaa dhacday marka in arrintaasi ay noqoto arrin ugub ku ah gobolka Mudug maxaa yeelay gobolka Mudug saad la socotaan anigu waxaan ahaa goboltooyin ugu muddada dheer joogay laga soo bilaabo 2015 bishii November 8 ilaa xilligan oo intaasaan ka soo shaqeynayay arrimaha nabadeynta iyo heshiisiinta iyo bulshada iyo amnigaba intaa markay dhacday shacabka ku dhaqan gobolka Mudug iyo odayaasha dhaqanka waxay go'aan ku gaareen laga soo bilaabo xilligii digreetada oo xaaf soo saaray ilaa xilligan inay wada tashi u fariistaan wada tashigaas oo kadib wixii ka soo baxay ay ila wadaageen oo ah in arrintaani ay tahay arrin aan inaba la qaadan karin sababtuna ay tahay ay u arkayaan miisaanka iyo howlaha gobolka aan ka soo qabtay iyo muhiimadda aan u leenahay iyo arrintan oo ku timid wax aan la gelinayn ama xilliganba aan la shaacin iyo ayadoo xilligan hadda lagu jiro uu madaxweyne xaaf madaxweynihii mataqaanaa uu ku jiro xilli transition ah oo muddo badan laga wada hadlayay masiirka Galmudug iyo masiirka dowladda federaalka iyo xiriiradeeda
in xilligan marka uu go'aan qaato uu yiraahdo waxbaan kala dilayaa waxbaan magacaabayaa ay ku noqoto maamulkii iyo bulshadii mid lama filaan ah oo ku abuuraysa khilaaf hor leh sida aawadeed anigoo tixgelinaya shacabka rabitaankooda iyo dhammaan duqowda ka soo jeeda gobolka mudug ee muddada dheer aan ka soo wada shaqeynayna nabadeynta iyo arrimaha bulshada oo anigoo aad iyo aad igu adag tahay inaan iraahdo maaragtay inaan ka hadlo arrimo khilaaf ku saabsan maadaama aan ahay nin dhalinyaro ah oo muddo shaqeynayay oo heli kara fursado badan inaan ma arkaysaa dalka iyo deegaanka u abuuro aniga khilaafkaas waxaan aaminsanahay maskax furan iyo ma arkaysaa tala wadaagga inay ku tahay cudur iyo waxyaalaha uusan qaadan karin waxaa la rabaa siyaasadda marka laga shaqeynayo ma aha nacayb mana aha jacayl waxaa la rabaa in masaalix in isla wadaagsado waxaa lagala hadli karaa xaaf oo dowladda dhexe waxyaalaha uu tabanayo waxaan marar badan kala hadalnay inuu soo gudbiyo waxyaalaha uu dowladda dhexe ka tabanayo waa wax asaga u gaara kaliya uu ogyahay marka taas macnaheedu ma aha dowladda inuu asaga kaliya yahay xibnaheedii iyo jiritaankeedii iyadoo dhan dowladdu waxa weeye waa xibno wada jira waa organic maamulka meesha ugu hooseysay meesha ugu sarreysay waxaa la rabaa inay systemku wada socoto siyaasiyiintuna way fara badan yihiin dhammaantoodna waxay ku wada yimaadeen qaab ma arkaysaa ee ku dhisan qaab beeleed oo ma arkaysaa wadaaga oo la rabo in transitionkaas loogu gudbo marka kanaan jeclahay kanaan necabahay kanaan qoorta ka jebinaya wax soconaya ma aha wadatashi waxaa laga rabaa xagga odayaasha waxaa laga rabaa xagga bulshada waxaa laga rabaa xagga siyaasiyiinta haddii laga waayana asagaa sharciga jibi asagaa ka baxaya meesha in badan waxaa lagu celceliyey dhaqaalaha arrimaha dhaqaalaha dhaqaale abuurku wuxuu u baahan yahay marka hore qofka economistayaasha dadka dhaqaalaha marka la abuuro shacbiga laga soo qaadaa shacbigana lagu celiyaa annaga muddadii aan shaqeynayno horta bal ha la weydiiyo shaqaalaha dowladda iyo mataqaanaa iyo ha la weydiiyo odayaasha dhaqanka iyo dhaqaalaha loo keeni jiray gobolka mudug xilliga hore intii xiriirka uu socday oo laga shaqeynaya ay isu ficnaayeen dowladda dhexe asaga bal dhaqaalaha uu ka soo qaadi jiray waxa gobolka mudug uu ka bixiyay dadweynaha la weydiiyay aniga waxaa laga yaabaa inay isleedihiin xoogaa way isla gariifeen dabcan ma u maleynayaa one single penny hal maalin inuu ku bixiyo marka laga helayo gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegay in webiga shabeelle uu fatahaad xukun ku sameeyay deegaano ku dhow magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe wadada isku xirta magaalooyinka jowhar iyo mahday ayaa la sheegay inuu gooyay fatahaadda webiga shabeelle waxaana istaagay isku socodka dadka iyo gaadiidka sidoo kale fatahaadda uu sameeyay webiga shabeelle ayaa waxa uu baabiiyay dhul beereed ku yaal gobolka shabeellada dhexe deegaanada uu ku sameeyay webiga shabeelle fatahaadda ayaa waxaa ka mid ah deegaanada xanshooley iyo lebiga oo u jira magaalada jowhar wax ka yar 3 kiiloomitir iyadoo dadkii ku noolaa qaarkood ayna ka barakaceen si uusan webiga wax yeelin fatahaadiisa sanad kasta markii la gaaro xilliyada roobka ayaa waxaa webiga shabeelle uu sameeyaa fatahaad kala duwan taasoo saameyn ku yeelan karta badi dadka ku nool gobolka shabeellada dhexe madaxweynaha maamul goboleedka galmudug axmed ducaale geele xaaf ayaa ka hadlay culayska maamulkiisa ka haysta dhinaca dowladda federaalka soomaaliya kaasoo muddooyinkii ugu dambeeyay ahaa kugu soo jiitamay madaxweyne xaaf ayaa sheegay in culeysyada haysta ay sabab u noqdeen inuu tagi waayo gurigii uu kaga deganaa magaalada muqdisho sidoo kalena uu awood u yeelan waayo inuu tago magaalada cadaado oo ka mid ah deegaanada galmudug wax badan ayaa jira hal sano xitaa aniga gurigeyga muqdisho maan tagin cadaadana diyaarad baan ku dulmaray laakiin intaasi oo dhan dagaal baan ka xiga waana gaari doonaa insha allah ayuu yiri madaxweyne xaaf wuxuu sidoo kale soo hadal qaaday mashaariicyo horumarineed oo madaxweyne farmaajo ka dhagax dhigay deegaanada galmudug kuwaasoo aan weli dhaqan gelin isagoo balan qaaday inay isku tashi sameynayaan dadka naga soo horjeeda wanaageena ma rabaan laakiin maalintii ay iimaanayay ee ugu horeysay meelo badan ayuu dhagax dhigay wax soo laabtana ma arkin mana arki doontaan ayuu yiri madaxweyne xaaf waan ka shaqeynaynaa waana joogaynaa wax badan ayaan sameyn doonaa insha Allah madaxweyne xaaf ayaa ugu dambeyntii sheegay inuusan jirin khilaaf kala dhaxeeya madaxda ahlu sunna ee ku biiray maamulkiisa galmudug isagoo sheegay in qoraalada la isla dhex mariyay maalmahan baraha bulshada laga soo diray magaalada Dhuusamareeb ee ay joogaan dadka asaga ka soo horjeeda waad ku mahadsan tahay daawashada iyo la socodka warkayga fadlan ha moogaan inaad subscribe saarto channelka Warbaahiya Media kadibna gambaleelka furato mahadsanid